بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal waxaynu bilaabaynaa barnaamij la magac baxay dalaa'il النبوة, waxyaabaha nabitinimada nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam inuu nebi yahay ku tusinaya. mowduucan oo xalaqaad aynu ka dhigayno inagoo soo koobayno oo ku dadaalayna xalqad kasta inaynaan 5 daqiiqo aynaan ka badin iyadoo ka yaraata mooye. maanta ciwaankeennu waa asbaabu irsaali al-anbiyaa, waa hordhaco sababaha nebiyada loo soo diro maxay tahay waxyaabaha looga baahan yahay in nebiyo lasoo diray. arrinka koobaad waa cibaadatullaahi bilcilmi, ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi lagu caabudo. ilaahay waxaa loo caabudayaa siduu isagu uu doonayo, min xaysu araada allah, siduu isagu doonayo cid inoo sheegta ayaa loo baahan yahay. saa daraaddeed ayaa waxa weeye nebiyada loo soo diray si ay inoogu sheegaan oo siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala doonayo in loo caabudo, si aan ilaahay jahli loogu caabudin. sidaa daraaddeed ayay nasaaradii markii ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay jahli ku caabudeen ayay u lumeen. marka arrinka koobaad ee nebiyada loo soo diraa waxa weeye cibaadatullaahi bilcilmi, ilaahay cilmi lagu caabudo. marka wax kasta oo cibaadada ku saabsan waa min dariiqi naqli bay noqonaysaa, can dariiqi naqli. waa inuu qaala allahu wa qaala rasuuluhu, ama ilaahay yidhaahdo ama rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu markaasi u yidhi. arrinka labaad ee nebiyada loo soo diro waa qeybka iyo waxa maqan si ay noogu sheegaan. waxyaabo qeyb ah oo maqan ayaa jira oo ilaa aynu rumayno mooye aynaan mu'miniin aynaan noqonayn. waxaa ka mid ah nebiyadii calayhim assalaam ayaa markaasi ka mid ah. waxaa ka mid ah aliimaanu bilyowmi alaakhir, waxaa ka mid ah aliimaanu bilmalaa'ika, waxaa ka mid a janno iyo naar inay jiraan. arrimahaasoo dhan waa arrimo inaga maqan. waxaa loo baahan yahay inaynu ogaano, cid inoo sheegta ayaa markaasi loo baahan yahay. saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebiye usoo diray, ama uu nebi maxamed usoo diray oo uu waxyooday si uu arrimaha waxa weeye inoogu sheego, sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala isna waa inaga maqan yahay, waana qeybka la yidhaahdo qeyb kulli ah oo waxa weeye tafaasiishiisa xataa aan la garanayn. waa qeyb dhammaystiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaana lagu garanayaa ilaahay maadaamuu qeyb yahay, sifaadkiisana cid inoo sheegtaa loo baahan yahay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye loo waxyooday, oo waxaa ka mid ah aayadda la yidhaahdo aayat lkursiyi, allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u sifaynaysa. saa daraaddeed bay aayaddaasina ku noqotay acdamu aayatin fi lqur'aan. arrinka saddexaad ee nebiyada loo soo diro calayhim assalaam waa iqaamatu lxujati cala alcibaad, inay xujada ku oogaan addoommada. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku tilmaamay, wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula, ma cadaabayno ilaa aan waxa weye rasuul aanu usoo dirno.